Ibaso basibas Duniga aniga na ibas Ibaso basibas Kubada aniga na ibas kooxda Arsenal ee ka dhisan waqooyiga London waqti xaadirka kan iyo wixii ka dambeeyay waxay baadegoob ugu jirtaa sidii ay ku heli lahayd badalka macallimka reer Spain ee Unai Emery oo kooxdii Arsenal ee ahayd midda awoodda badan xilli ciyaareedkan ka soo saaray koox waxna yahow ah waxaana waqti xaadirka kan jariirada The Times ay tilmaamaysaa in uu haysto muddo yar macallimka reer Spain ee Unai Emery si uu u badbaadsado shaqadiisa kooxda ka dhisan Emirates Stadium. The Times intaasi waxay ku sii daraysaa in xitaa Jose Mourinho uu kulan casho ah la yeeshay agaasimaha kooxda Arsenal ee Raul waxaana ay isku afgarteen in uu hoggaanka u qabto kooxda Arsenal oo dhinac kasteetaba waxa muuqanaysa in ololihii jamaahiirta Arsenal mar kale uu noqon doono mid guuleystay oo maxaa yeelay goor horeba waxay kooxda ka eriyeen hayaygoodii hoggaaminta wacnaa ee Arsene Wenger haatanna waxaa xiga macallim Unai Emery oo tan iyo markii uu yimid kooxda Arsenal ka soo saaray kooxanan waxba galin waxbana godin ma kula tahay in Jose Mourinho uu yahay macallin badbaadin kara mustaqbalka kooxda Arsenal bal aragtidaada noogu reeb xagga commentiga mana yahay macallimka ku habboon ugu dambeyntiina weeraryahanka kooxda Arsenal ee Miyeey Aubameyang ayaa iska diiday heshiis cusub oo ay u soo bandhigtay kooxda Arsenal isagoona ka fiirsanaya in gabi ahaanba uu isaga dhaqaaqo Emirates Stadium xidigan reer Gabon ee dhaliyay kontonka gool 78 kulan uu u saftay Arsenal tan iyo markii uu ku yimid aduu lacageed gaaraya 57 milyan oo la siiyay kooxda Borussia Dortmund sanadkii 2018 ayaa ku soo baxay mid ka mid ah weeraryahanada ugu halista badan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska xilli xitaa raacdadiisa ay qayb ka tahay kooxda Real Madrid oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub si la mid ah Manchester United. Arsenal ayaana wada hadallo la furtay 30 jirkan si ay ugu saxiixdaan qandaraas cusub ka gadaal markii ay garowsadeen in uu yahay ciyaariyaan wax badan ku soo kordhi kara kooxda laakiin Oba ayaa gabi ahaanba ka soo horjeestay go'aanka maamulka kooxda Arsenal waxaana uu ka fiirsanayaa sida wararka ay tilmaamayaan in gabi ahaanba kooxda uu isaga tago maadaama kooxda Arsenal waqti xaadirka kan ay haysato mashaqo jahwareer oo sal fadhiyo malahan laakiin waxa laga yaabaa in go'aankiisa uu isbedelo haddii kooxda gabi ahaanba laga ceyriyo macallim Unai Emery. haddii aad ka heshay muuqaalkan like sar haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe sar gambaleelkana furo si aad ula socotid muuqaaladeena. Assalaamu calaykum.